waxaan ka cabanaynaa ciidamada dawladda oo runtii maalin dhexdaasana dad shacab oo rayid ah oo aniga aan la balman ku iri maadaama dagaal sokeeye meesha ka dhacay oo ehela taga oo ma aragtay garnaqsada dadkii meesha aan fariisiyay odayaasha qayb ka mid ah 3 odayna waa la dilay oo ganacsato ka ahayd wala weyn oo caan ahayd runtii oday kalena waa la dhaawacay nin dhaawacna dawladda markaas way qaadatay waxaa kaloo dhacdadaas dhacdo la mid haddana mar labaad saaka dhacday dhibaatada marka aan ka tabanay ciidamada dawladda waxa waaye maadaama meesha dhib ka dhacay wiilashu ay ahaayeen maleeshiyaad ugu talagalay inay dalkooda dadkooda xoreystaan dawladuna mar walba ay dhahdo waxaan rabnaa inaan shabaab iska xoreyno iyagana ay diyaar u noqdeen ay diyaarna u yihiin ay u soo diyaar garoobeen in iyagoo maanta dagaalkii markuu dhamaaday sokeeye dhexdooda ahaa beelaha walaalaha ahaa markuu dhamaaday lagu yiri nabadda qaata oo dib u heshiisiin la suubiyo oo maalmo dhan loo fadhiyay dib u heshiisiintii markay dhamaatay oo heshiiskii la qaatay inay maanta dhacdo dhacdo aad u foolxun oo ciidamadii dawladda isla socdaan iyo danam iyo bankraft inay imaadaan maxaan ku iraahdaay iyo ciidamada xooga dalka inay imaadaan ya kabahereg haddana dadkii masaakiintii ciidamadii maleeshiyaadku meesha joogaan dagaalna shaqo ku leeyahay waxna aan ogeyn oo heshiis qaateen oo beelihii walaalahan is dhexmarayaan wax dhiba jirin oo heshiis dhab ah oo odayaal qeyr Allah siiyo 9 la bixiyay ay qaateen iyo intay u imaadeen saakay dagaal ku soo qaadan iyagoo aan dagaal diyaar u ahayn cidna aan ka sugeyn weerarna aan sugeyn markaas waxa ku dhimatay 3 qofood 2 qofood oo dhaawacna way qaateen qofna way qaatay qofna way ka tageen marka waxaan ku dhaleecaynaa dawladdu ma dawlad shacabkeeda iyo dadkeeda u turta ah mise waa dawlad maanta dhan ku dhex jirto qabiil iyo waxaan anaga aan garanayno ka shaqeyn karin ka shaqeynaysa waxaan rabnaa maalin dacwadna waan ka qornay waxaan rabnaa cadeynteedii iyo proofkeedana waa haysanaa ciidamada qalabka sida ma ahan ciidamo qabiileed haddii ciidamo qabiileed yihiin ha noo sheego aan ogaano dawladda aan isku ogaano haddii kalena waa in dadka masaakiinta aniga aan xildhibaanka waa meesha degan waa inay nabad ku noolaadaan haddayna nabad ku noolaanayna ma dhihi karno dawladaan ahay ma dhihi kari dawladda jirtana ma dhihi kari laba dawlada jirto dawladii shabaab oo iyadana wiilasha dhinac ka bursanayso oo ayna aadi karin meelihii ay ka imaadeen dadkooda ay aadi karin waxay ugu talagaleen ay ahaayeen maadaama dhibaatadii shabaab ay soo badatay ay rabaan dadkooda inay xoreystaan waa in la siiyo waqti waa in la siiyo tababar waa in ciidanka dawladda federaalka lagu daray u baahan waxay u baahan deegaankooda inay hadda kabaheerg way xoreystaan leega waa xoreystaan ma ciidana wax siiyo ma rasaas la siiyo ma xuba la siiyo ma lacag la siiyo dawladda ka warqabto waa dad iskood isku xilqaam una baahan dhulkooda inay xoreystaan kadib markay arkeen inay tahay meeshan qof walbo dhulkaaga xoreysto isxilqaan iyo qaankoodina wuxuu noqday in ciidamada dawladda maalin walba haday baadiyo dhibaato ka soo dhacay in lagu soo duulo oo la dhibaateeyo raalina kama noqon dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka waxaan ka codsanay reerkayga dhibaatay ku qabaan deegaankaas waxa loo baahan yahay ciidanka xooga dalka 500 oo wiil ka badan meesha joogta ciidamada qalabka sida nooc arabtaan ku dara ciidamada wiilasha lagu dal dhulkooda ha xoreystaan diyaar u yihiin dhibaatadii shabaab ka badatay adinkana ha ugu darsoomina fadlan dadka waxa loo qabto ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaan ka codsanayaa dadkaas 100 jeer arrimahooda waan ka hadlay idaacadahan ka hadlay iyagana la hadla waxa idin ka codsanaa dawladda inay dadkaas wax u qabato haddaan dadka wax loo qabaneen oo shabaabna gumaadayaan adinkina aad shaati dawladda lagu gumaadayo waxaan qaadan kara ma aha waxaan qaadan karnana ma aha waxaan codsanayaa af dheer iyo afgaaban intaba ku codsanaa in dadkayga wax loo qabto dadkaas way dhibaataysan yihiin Soomaaliya oo dhan xataa kuwii isugu talagal aaway odagii maaragtay Hirshabelle isugu talagaleen go'aansadeen macawisleen noqon dalkooda inay xoreeyaan dadka niyad jaba ku dhacay cid caawinaysa ma laha meeqa family oo qoryoolay saas oo kale dadka isxilqaama oo maleeshiyaadka waxay u baahan in garab la siiyo dawladda waxaan ka codsanaa inay garab siiso waxa la raadinayo waa xorriyadii Soomaaliya in dib loo helo maadaama ciidamadu qalabka sidana ay awoodna u heeyno ay qarashna u heeyno qof walba ay ma aragtay ciidan ka dhigto ay lacag ku bixiso dadkii soo abaabul hadan in qalbiga laga jibiyo ma ahan in la dhibaateeyo ma ahan Hirshabelle dadkeeda ku feel garoobeen ay ku rafaadeen oo dadka oday aan ogahay oo YouTube-ka ku jiro yir inta wiilkayga la wadan ani aan dhinto oo dhintay shabaab way iska celiyeen dadka waa kacsan yihiin diyaar waxay u yihiin shabaab inay iska celiyaan laakiin dawladda waxa laga baahan yahay hadayna awood xataa inay wax kale u qabato inay lafahooda u badbaadiso inay dhiirigeliso inay tababar siiso looga baahan yahay shirkayga jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay waa intaas waana ma runtii qof bilaadan oo ma aragtay dagaal raalika ay ma jirto dadkan iyagoo shacab oo ma aragtay shacab caadi ah waxay ka dhiiyeen dadkooda maalba la dhibaateenayo canshuuraha laga qaadanayo dadkii la baabi'ina inay shabaab iska celiyaan waxa aragtida keenta macawisle inay noqoto oo intaasna meesha ay joogaan oo ma aragtay isku abaabulaan waxa keenta waxa waa inay ma aragtay ciidanka galaan dadkooda caawa ciidankina dabcan aniga oo xildhibaan waan u weydiiyay dawladda ilaa hadda wax akhbaar kama hay marka waxa loo baahan yahay in dawladda ay arintan si sax u qaadato oo ciidamada qalabka sida
xooga dalka inay ka biiraan si ay dadkooda nin walba deegaan uu leeyahay deegaankiisa ha xoreysto ana waxaan qabaa dagaalka shabaab lagu jiro wuxuu u dhamaan waayay qorshaha ka xun qorshaha waxa waaye qof walba meeshiisa maleeshiyada laga qoro qaybtan markay xoreysato qaybta kale hadana loo gudbo qaybta kale loo gudbo dadkii xoreystana magaaladooda ha joogaan saas ay u baahan yihiin dadka deegaankooda iyaga diyaar waa deegaanadeena waa qani dadkeena waa barwaaqaysan waxay u baahan yihiin dawladnimada waxay u baahan yihiin dawladda inay soo garab istaagto